الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، أوصيكم ونفسي وعباد الله تقوى الله تعالى. walaalayaal waxaynu ka soo hadalnay labadii khudbadoodee hore ciqaabta iyo ceebta ay leedahay xaaraanta cunideedu. khudbaddii kalena waxay ahayd xalaashoo la cuno barakada badan ay leedahay. khudbaddanna waxa weye sidee loo soo saari karaa xalaasha laftigeedii si xaaraanna looga maarmo. marka cinwaan اlkhudba waxa weeye cilaaju اlfaqri, kayfa caalaja alislaamu اlfaqr. islaamku siduu u daaweeyey waxaan la yidhaahdo faqriga. marka hore aragtida ay dadku ka leeyihiin faqriga way kala duwantay. qolaaba khayr u arkaba, iyo inuu wanaag yahay, iyo inuu diin yahay. waa ragga kaniisadda iyo diintii la bedelay ee kiristanka dadka ku abtirsada. adduunyadu waa wasakh, qofka nadiif ka noqdo un baana ilaahay u dhow bay qabaan. waana sababta keentay gaaladii ku abtirsanay inay iskaga tagaan ee calmaaniyada qaataan, diin iyo dowlad in la kala saaro. qolo kaloo gaalada ka midii faqriga iyagaa ilaashadoo daaya, dadkay doonayaan bay ku daayaan. sababihii keenaya faqrigana way ugu dadaalaan, oo alfitnatu walfiraq, in dadka fitno laga dhex abuuro, firqadana loo qaybiyo si ay fuqaro u noqdaan iyaga u baahda oy u horu mari kari waayaan. oo waxay ku isticmaalaan muslimka iyo adduunyada saddexaad dadkay ku sheegeen casrigan waa silaax iyo hub ay isticmaalaan gaaladu inay fuqaro noqdaan kula dadaalaan. si carabtu odhan jireen jawic kalbaka liyatbacka, aygaaga gaajaysi si uu kuu dabagalo ama neefkaaga. laakiin islaamkeennu faqriga uu la dagaalamay wasiilooyin iyo dariiqooyin kala duwan, waxaanu tilmaamay inuu khatar yahay dadka caqiidadooda iyo fikirkooda iyo akhlaaqdooda, qoys iyo qof iyo qaranba, inuu khatar yahay. waayo haddii qofka uu faqiir noqdo ama fuqara ay noqoto ummaddu, dee dadka inta badanna sida la ogsooyo iimaankoodu qawi ma wada ahaa. diintiisi iyo gobonnimadiisiiba inuu dunyo ku iibsadaa laga yaaba marka caqiidadii iyo akhlaaqdii iyo wax walba uu ka khalkhalgelin karaa faqrigii. oo qof iimaan weyn ayuunbaa u adkaysta mushkiladda faqriga oo xejisto ku sabra. mar labaad wuxuu islaamku u tixgeliyey inuu yahay balaa istacaada minhu nabiyu sala allahu calayhi wasalam. waa balaayo uu nebigu ilaahay ka magan galay. allahuma innii acuudu bika min alkufri waalfaqr. ilaah waxaan kaa magan galay faqriga iyo gaalnimada. bal halkuu raaciyee waa musiibo. mar kale wuxuu uhi nebigu sala allahu calayhi wasalam, allahuma innii acuudu bika min aljuuci fainahu bi'sa adajiic. ilaahw gaajadaan kaa magan galay. wax laga kuu galo oo kula jiifsado aada weheshato gaaja u daran. waxaa islaamku uu kula dagaalamuu kaga hortegay faqriga in la raaco nidaamka islaamka ee dhaqaale ee wanaagsan ee dhexdhexaadka ah, alwasat, ee qofka u ilaalinaya lahaanshihiisii gaarka ahaa iyo xorriyaddiisii, farayana ummadda inuu qeybtooda siiyo. waa nidaam u dhexeeya ka raasamaaliga iyo ka shuuciyadda. shuuciyadduna waxay dhahaan dowladda waxa dadku hayaan oo dhanba leh, waa la wada leeyahy, qofkiiba ikhtiyaar ma leh. raasamaaliyaddiina waxa weeyaan kamaal kale in la caabudo, isaguna dadka madaxa uu kaga fadhiistuu tuumbadii ribada ku nuugo. labadaasuu u dhexeeyaa. qofki isagaa waxaan leh, milkigiisii khaaska ahaa weeye, xorriyatu tasaruf buu leeyahay, laakiin wixii ilaahay ku waajibiya waxa ka bixiyo walaaliha soo kiciyo. wuxuu islaamku faqriga kula dagaalamuu ku daweeyey inuu dadka ku qanciyey ana almaala maalu llah waalcibaadu cibaad ullah. maalku waa maalkii ilaahay, addoomuhuna waa addoomihii ilaahay, ka haya iyo ka la siinayaaba. marka alaabta ilaahay ha kala dhex gelino ha isu diidi. adiga ilaahay baa ku siiyey, isagaana ku yihi kan kale ku ag joogana wax ka sii. qur-aankuna taasuu aada inoogu rabeeyaa. waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih.
إلهي وحو إذن سيه وحكبحي أنا إذن سيوي ولبا وكيل لا إلهي كقتي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم حوله إلهي إذن سيه وحكبحيا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة دار آخرية جنة كرات وحو إلهي كسيه وكبيرا وحو إسلام كفقر كجهر تجي إنه فري أمر المحافظة على المال ومنع التبذير والتكنيس وحلا فرينا إنه حولها إلهي نقول دقيق إلى شنو وحين كيل لنا وحلا إلى التبذير دادنت بل ود لقوا استعمال أيو بولاتيق لقوا استعمال أيو تمشدي حران تقفكوا كو استعمال أيو مالك كستو حرانا أكو بحن ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا شيطان بوقفك لو ولا نقنا يا إنه مال كي لها يسير مال حرام كبحيه تكنيس كنوا للديدايو إن وحي قفك سوق لا يقفشون ونواجب كي يا وحي لقولها كبحنين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال هدو قفك ماله لا يكبحين وايو أو إسكاك يتصدى أو حجستو ده نار كاك إلهي وحلقوا بشارة النار إسلام كوحة وكده وفقر قال لقى عبانا يوم تلابوين أي كم تهيكو توعية الفقير قفكي فقير كهاوى الوعي قلينيه وحلا له فقر كوهايا هرت عيب معها وليس صفة لازمة لك وحلا لا تيو تلقى أنا معها لكن الحل بيدك حلك عنت هذا كشرابا هذا هو هران ولقود كواسات تجارها كواسا مال قبينها ولقوده هل كها فدين هرب صاك عضو استدرادت بالنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أيها أصحاب تيسي كويد هل كان فرفدين أرض كعو إنه متكين حابة صاق وراء سوق كيبية وحكم مصروف صددت كان وحسية وحيوقف في عنت إنه مدة وبربرية أو شحاضة الحل بيدك وي حلك عنت هذا كتير هذه شقك استوى حلال أو دقاق وقد تكون غنيا ومستغنيا إن هذا مال قبل نقطانا ولا جيابة تسومالي قال كودرن جيران دادا على حاج عباس waa gaara inta jirabuha ka wad gaari kartaabay kuleena dad shaqaysato Umar ibn Khattab wuxuu leeyahay law kana al-faqru rajulan laqataltu wallahi bahalka faqriga la yiraahdo nin noqon laha ana u bixi laha oo dili laha wuxuu arkay in iska cibaadaysanayo qabta un haya salaada walkaasa wuxuu akhuuka khayrun minka walaalkaaba ka khayr badan waa ka shaqatiga adiga reerkaba masruufay hadda halkaas uma salaad la taagantay salaadaadu aday ku gaartay ninkana umadu anfacayaan ilaahay baa wuxuu wali kullin darajaatun mimma amilu qof waliba wixii uu amal falay buu darajadeeda leeyahay diin iyo dunyaba bushaarana ilaahay uu nasiyo wuxuu sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra ilaahay farajkiisu waa soo socdaaye faqiir daatay uu ka dul qaadi kara dadaal يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وبشارة إلهي تذكر هذه فقراء ده إلهي وفضله يسسين يقولون لقلقاء خاصة مياه وحيابو كده ويبا كم التهاي إلا ينفري أن نمكن الفقراء من أدوات الإنتاج ذاتك فراها مرانين إنوسها لسي وحسوا صارك الهاين وإن أنسلاين قال ذاك قصوا ورهرنين مالكو هاينين أين هراو صاكعين لهاين ومجالك يماشي كهول قال لي أنا وحكسو صار الهاين لو واسعيه مالك وحلقة سيئة أمال أماهيه تدريب لسيئه تببرك كشقين الهاين ضدكني ودورك إلا هذا هاي السياسة نقالة إسلامك لما رحنا مسلمين تناؤوا تاجيهين والله بقى ريموت بلدونا يا إن مدحضوا دقاقان وإن إنتاج كبديان زيادة الإنتاج dadku si ay faqriga iyo caydha uga baxaan gobonimada darrada sababta oo in loo sahlo say u shaqaysan lahaayeen iyo taqliil al-i'timaad ala al-ghayr dadka kale bani aadamka ah aynu ku tiirsanahay doonaya inaynu ku tiirsanaano iyaga si ay noogu taliyaan in laga maarmo
waxaynu garan karaynaa taariikhda markaynu dib ugu noqonno rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabta wax badan baynu taa ka qaadanaynaa waxa dhacay hijradii nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaab badan baa ka tegay dalkoodii dunyadoodii dadkoodii reer maka markaasay madiine tegeen mushkiladaha adduunka ugu daran hadda qaxoontiga ka mid ah ee aada looga cawdo dowlado badani ka qaylinayaan si dhib yar buu nebigu u xalliyay calayhi salaatu wasalaam dadkii deegaanka ahaa iyo dadkii soo guuray soo hijrooday ilaahay daraaddii ayuu isku mataaneeyey ama isku lamaaneeyey isku qoys buu ka dhigay maxay sameeyeen laakiin qoladii reer maka saxaabada reer madiine u yimi dee marti baanu halkan aanu iska wardiyaynaaye qoriga iyaga iyo qusumka iyaga noo keena may odhanin oo dadkiina adduunyadiina ka shaqeeya laakiin waxaa lagu heshiiyey inay shaqada la qabtaan beeraha la qodayaa ceelashaa la qodayaa waxbaa la wada beerayaa marka waxay yidhahaan xoolaha annagaa leh laakiin nala shaqeeya wixii ka soo baxana aan qaybsanno sidaasaa saxa bay yidhahan qayb ka mid ahoo xirfadlayaala oo xirfadda ganacsiga aada u yaqaana sida cabduraxmaan ibni cawfi iyaguna suuqaa bay tegeenba sacd ibnu rabiic buu nebigu la walaalay radia allahu canhum wa ardaahum cabdiraxmaan ibnu cawf ayaama kadibba waaba maalqabeenba suuquunbuu tego wuxuu arkay fursad ganacsi oo ka jirto oo dahabkii iyo lacagtii buu kala rogrogayo in yar kadibba waaba guursadayba oo nebigu wuxuu arkay isagoo guursadayba oo ka maarmay saaxiibkii lagu daray qofka muslimka ah sidaasuu markaa sida qur-aanku uu faraya xadiidku uu faraya nusuus aada u badan ayaa u howlgelaya waajibna ay nagu tahay dadka weliba hogaaminta xilka ummadda u haya inay fursaddaa dadka u saamaxaan ay u sahlaan lidaalik baa islaamku qofka muslimka ah ee soo shaqaysanaya iyo ka mujaahidka labada markuu ilaahay sheegayay kii muslimka ah ee soo shaqaysanayay ayaa la horraysiiyey waakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaquuna min fadli illaah waakharuuna yuqaatiluuna fii sabiili illaah cibaadooyinka habeenkii waxaa la idinka fududeeyey baa ilahay uhi dee qayb baa shaqaysanaysa maalintii qayb baa jihaadka galaysa qaybtii shaqaysanaysaaba aayadda horraysiisa ila jihaad buu ku jiraa cadowgaasu ka maarmayaa carabtu xikmaday leeyihin badan sidaynu inaguba xikmado badan u leenahay xikmadaha soo dhiirinaya arrintan aynu ka warramayna iyo wax soo saarkiiyo dadku inay isku filaadaan waxaa ka mid a xikmadda odhanaysa laa tucطi alfaqiira samak walaakin callimhu kayfa yashdaad qofka faqiirka ah kalluunkuun ha u badin intood u soo saartay lakiin waxaad bartaa sidaa uu kalluumaysan lahaa ee u shaqaysan lahaa hadda hay-ado badan baa waxay ku dadaalaan dadka inay u keenaan raashinka kadibna loo kariyo la yidhaha kuyuu gal oo dee fandhaalka iyo soo qabsada fujaanka ha la ydinku rido dadka qaarkood aragti gaaban waxay odhan waa nimanku wanaagsanah oo hawshiiba way naga filaadeene raashinkooduba waa diyaare dee halkeena aan iska ciyaarno markay meel gaadhaan ay isku tashan kari waayeen baa laga jarayaa waa kuwaa gaajo wada baktiyey marka waxay tahay dadka waxaa dhaqdhaqaajinaya ama wada in la yidhaahdo waxaan u baahannahay mashaariicda horumarka inaad noo samaysaan oo kuwani qaafigee gurmadka deg dega intoo dhaaftaan wixii dadkani uu ka shaqaysan lahaa inaad noo soo saartaan adduunyada islaamka had iyo jeer kuwa sidaa u fikirayana gaaladu ma jecla oo waxay dhahan kuwani waa inaga maarmayaan xikmadaha waxaa ka mid a xikmad odhanaysa suncatun fi lyad amaanun min alfaqr inuu qofku xirfadla yahay wax soo saari kara waxay ka badbaadisaa inuu faqiir noqdo oo qofku kolkuu mutacalim yahay ama xirfadle farsamo yaqaana yahay meeshuu tagaba wuu ka shaqaysanayaa un baylah baa ka jirto dadkii wuu samaynayaa sidaa daraaddeed baa siduu nebigu inagu dhiirinayo sala allahu calayhi wasalam ay habboon tahay dee xayawaanada ilaahay u abuuray bilaa caqliga iyo shimbiraha inaynaan ka liidanin tusaaluu nebigu ina siiyo wuxuu ihi low tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakuli larasaqakum kamaa yarzuqu طayr taqduu khimaashan wa taruuxu bidaana haddii intoo tacab samaysaan ilaahayna tala saarataan wuxuu idiin arsaaqi siduu shimbirta u arsaaqo subaxdii bay kala haysaa iyadoo gaajaysan iyadoo dheregsan bay soo noqonaysa oo sahaydiina u sida dhalaheedii yaryaraa laakiin ilaahay bay tala saaratay ma aha oo keliya ee taqduu buu nebigu leeyahy way kala haysa innagaa inaguna dee fadhfadhina shaqaa la laaya waa wada qayilaya waa balwadlayaal dadka intooda badan inta yare dhaqaaqaysa culays ku yihi fa huwa kallun calaa mawlaahu
si faqriga loo xaliyo arrinta lixaad ee islaamku ku xaliyo ku daaweeyey waxa weeye amara alfaqiira alicfaafa walkafaaf wa amara alghaniya alinfaaqa wazuhd labadaasaa wada socda qofkii faqiirkaa waxaa la yidhi dadka ka daa culayska iyo dawarsiga waxda haysana marxiso dee shaqaysana oo su-aasha islaamku waa la diiday qofka inuu dee xaalad adag uun mooyaane inuu dadka shaxaado oo uu wax weydiisto xaduuro waa loo diiday kaa su-aasha yareeya baa la yidhi kuwii baahnaa kuwii maalqabeenka ahaana waxaa la yidhi garaacasho un ha yeelanina garasho yeesha dadka qaybi garaacashay leedahoo ma tawaabo waxna ma bixiyo ilaa dee la wareeriyo oo la yidhaha noo dhiibta lagu badiyo qofna garashuu leeyaho dadka uu kala yaqaanaayo ka bahan buu halkiisa ku siinayaa markaa kanowna garasho yeela baa la yidhi kanowna garaacashada daah waa la isu celiyey markaa dadkiina dawarayayna dhibaya way yaraanayaan kuwii wax garanaya bulshada u gurmaynaya way badanayaan siyaabuhu ku daaweeyey islaamku faqriga ay dadku la ildaran yihiin waxaa ka mida inuu badiyey meelo badan oo waajibaada oo maalka ay tahay in la bixiyo ilaa 20 siyood 20 arrimood ee soo socda oo 5 ka midun ay sunnata 15 kalena waajib ay tahay in wax la bixiyo waxaa ka mid ah midalan sakadii xoolaha kafaaradii dhaarta kafaaradii nadarka qofku markuu wax wanaagsan oo tabaruca ku nadaro kafaaradii dhihaarka kafaara gudkii dilka tiikii soomka waajibkii xajka markuu ka tago xajka dhexdiisa shay xaaraana markuu la yimaado walqashi sakaat fidrigii odxiyadii biilkii la siinaya dadka qaraabada xaqii martida dhaxalkii la qaybsanayay hibadii sadaqadii ilaa 20 shay weey intaas oo dhan waxa la soo shubo akoonka lagu soo shubo dadka baahanna hal la isteeyo hana loo qaybiyo arinta toddobaad ee ugu dambaysa waxa weeye mowduuc ballaaran weeye kolay muxaadaraad istaahile waan ala niqaad isagoo qodobaysan baynu soo gudbinaynaa waa inay dadku isticmaalaan xalaash waliba waxa ka dhaxeeya dadka amaanada dadka ka dhaxaysa ayaa waa inay xalaasha ku dadaalaan xaaraanta iska ilaaliyaan waayo waxa la wada leeyahay shuraakada lagu yahay haddaad aragta dadka qaarkood oo badsaday ama ku naaxay kuwa kale ee baylahsan ee fuqarada ah ee yuubyuuba bay ka go-antay intii isu daalcanaasili lahayd baa dhinac u dheeliday sidaa daraaddeed ayaa arrintaana islaamku aada uga digay marka inuu qofku xaaraan badan ururiyaa laysa fiiha baraka ma laha mana odhan karno faqri buu ka badbaadayaa iyo wax soo saar buu la yimi ee waxay iman doontaa un intuu ilaahay baalmariya waxa xaaraanta uu ku ururiyey goordhow isagoo faqiira inaynu aragno kala kacay oo surwaalku ka dhacayo idan marka arrinta toddobaad waxaa ka mid ah in xalaal wixii lagu soo saaro xaaraani wax soo saar ma noqoto faqriga lagaga badbaadi karo toddobada arrimoodba waxay ka mid yihiin dhaqaalaha xalaashaynu doonayno siduu islaamku u dhigay in lagu soo saari karo idan marka haddaynu ummaddeena arrimaha u dhigno oo dadka ganacsatada dhaqaalayahanka madaxda lagula dadaalo wax badan baa maanta laga raysan lahaa allah inagu anfaco اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة